sanadku wuxuu ahaa 2010 waxaan ahaa 20 jir. guri ayaan kaligay deganaa ku yaala wadanka Virginia oo u dhow aabbahay iyo hooyaday, waxayna ku jireen 60 jir iyo meelahaas. Hooyadayna waxay noqotay islaan oo aad u warwar badan. Mararka qaar gurigayga ima jirtay anigoo ogeyn doqonimadeeda, anigoo fura siiyay mararka qaar, laakiin aad baan uga xanaaqi jiray. Imika oo kale markaan habeenkii maqan yahay aan saaxiibada la maqan yahay, guriga waxaan ugu iman jiray hooyaday oo aad u warwarsan. haa la garay, waxaad igu dhiilayd ma ku tiraahdeed caruur ma yihiin mar dambe ama furaha ma ka qaadatid. laakiin hooyaday garan maysid, waxay ahayd islaan oo aad u warwar badan. aniguna ma jeclay inaan ku qayliyo ama inaan ka naxeeyo, maxaa yeelay iyada ayaa i dhashay oo inay soo korisay. maalin sabti ay ahayd habeennimadkii, meelaha waxay ahayd 2 habeenimo. waxaan joogay meel xaflada ayaan saaxiibada la joogay. waxaan rabay inaan hoydo, hay baan ku dhahay goodbye baan dhahay. markaa waan baxay, dhinaca guriga ayaan u lugay. xogaa yar kadib gurigii ayaan yimid, furahan la soo baxay. albaabka markaan furay uuba furnaaba. waxaan dhahay hooyaday ayaa joogta. kadib guriga aayar baan soo galay, albaabkaan xidhay. xogaa yar markaan socday furihii ayaan dhigay. kadib waxaan arkay warqad ay hooyaday qortay. waxay ku qortay gurigayga ayaa ku ilooday kaag aan gurigooda aan kaga tagay. laakiin markan hooyaday waan waayay, meelba waan ka harki waayay. waxaan u maleeyay inay qolka labaad ay tagtay oo ay seexatay. xogaa yar kadib waxaan maqlay iyadoo soo kacday oo kor ka socota. waan yara xanaaqay, waxaan dhahay 20 jir ayaan jiraa, haddana waad soo kacaysa si aan caruur yahay. laakiin hadalba igumayna soo celin. kadib korka ayaan aaday, sariirtii ayaan ka waayay. kadib haddana musqusha ayaan aaday, musqushina mayna ku jirin. kadib waan yara warwaray. xogaa yar kadib telefoonka ayaan ku cararay anigii isla aabbawa. 4 jeer kadib wuu igu qabtay, wuu igu qayliyay, wuxuu igu yidhi maxaad rabtaa xilligan. kadib waxaan ku yidhi hooyo ayaa gurigeeda joogta oo kor ka soo socota. xogaa yar kadib wuu yara aamusay, wuxuu igu yidhi taasi runtaa maaha, waata anigii ag hurda. isla markiiba wadnuhu wuu istaagay. kadib dib ayaan aayar ugu eegay, waxba lama arkaynsa, laakiin waxaan arkay madax oo isoo fiirinaya oo aana u ekayn madax qof, oo aana dad u ekayn. isla markiiba waan qayliyay anigoo aad u cabsoonaya. gurigii ayaan ka baxay anigoo wadada cararaya. aabbahay telefoonka ayuu igu jaray isagoo leh haye booliskaan wacayaa. kadib gurigooda ayaan toos ku yimid. hooyadayna albaabka ayay sii taagneedba iyadoo warwarsan. hooyaday waxay tiri gurigaaga waan yimid, laakiin kitchada ayaan hagaajiyay iyo kaakii ka tagtayna waan dhigay. kadib booliska ayaa yimid. boolisku waxayna kaxayeen anigii aabbahay gurigii bayna geeyeen iyagoo guriga baadhaya. booliska mid albaabka banaanka ayuu nala taagnaa, midna guriga ayuu baadhayay. 5 daqiiqo kadib mid baa soo baxay, wuxuu yidhi cidna guriga ma joogto. laakiin anigu waan ku dhaaranayaa ayaan ku dhahay waxaan arkay madax oo isoo fiirinaya oo ana weligay arkinba ah. habeennimadkii aad ayaan uga cabsooday inaan guriga seexdo. markaa waxaan seexday guriga waalidkayga. hadda garan mayno waxa gurigayga joogay. hooyadayna mar dambe gurigayga ma timaado, maxaa yeelay albaabka oo furan ay ka tegi jirtay. ilaa iyo imka waxaan isdhahaa wixii gurigayga joogay weli uu joogaa oo meel ayuu ku dhuumanayaa.